السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن ووعن مقعي مريم وحن ربي ولا ليال وقت جينا إن ير أو كوبان إن كم أمحصده وأن إذن كلا هذلو حالة دان نباتة بدن قيرة بدن نقول ساميسي نو كنتي حنونك كورونا فيروس marka koobaad ilaahay ha u naxariisto intii Soomaali ah intii muslim ah intii dad kale ah ee ku geeriyooday xanuunkan dartiis caafimaad degdeg ahna ilaahay ha u keeno inta isbitaalada joogto iyo inta guryaha joogto shalay waxa soo baxay warbixintii ka timid yaar fella oo ah inta soo qaf 6 qafood oo Soomaali ah dad gaaris inay xanuunka u dhintaan isla markii baraha bulshada Soomaalidu ku jirto dhan waa ay wada kaceen warbixino iyo wacyigelin af Soomaali ah takhaatiirteeni dadkeeni aqoon-yahanada ahaa way soo baxeen dadkii ayay la wada hadleen waxa nagu jira wili marka dad rabaan in ay galaan difaac oo ay ka hadlaan waa maxay sababta loo sheegay inay Soomaali ahaayeen waa maxay hadda ka hor takhtar baa wuxuu yiri Soomaalida aqligoodu wuu yar yahay sidaan kaas Soomaaliyay waqtina waxa loo baahan yahay in la isdifaaco waqtina waxa loo baahan yahay in la garto qaladkaada oo aad wax ka qabatid oo aad wax ka bedeshid waqtiga maanta aan ku suganahay waxa way waqtigii nool kaga baahnaa in aan wax ka bedelno dhaqankeena waxa caado noo ah hadii qafnaga mid ah laga sheego xanuun ama la yiraahdo dhibaato caafimaad ayaa ku haysato in aan aqoon dari darteed aan dad qafkaasi oo la dhaqano si gaar ah taas waxay keenaysaa qafkii bini'aadanka ahaa oo nagu jira markii uu xanuunsado inuu qarsado xanuunkiisa sababtoo ah ma rabo in loola dhaqmo si ka baxsan dadka kale waxa kale oo muhiim ah in aan bilaawno in aan la socono waqtiga aan la noolnahay waxa soo baxeen warbixino ah in loo baahan yahay in guryaha la joogo waxa soo baxday warbixin ah in iskoolaadka la xiraayo waxa soo baxday warbixin ah in ay qasab tahay social distancing in la suubiyo warbixinadaas oo dhan inta ay soo baxayeen ummadeena Soomaaliyeed wali waxaan u nooleen si caadi ah wali waxaan fadhina maqaaxiyada wali waxaan aadayna aroosyaasha wali waan isdhaxyaacaynay maanta marka in markii dhibaatadii annaka ay nagu badatay oo aan arkayno dhibkeedii in aan wali difaac sii galno aan dhahno maxaan annaka fartanool kugu fiiqaa waa wax aad iyo aad qalad u ah waxaan u baahannahay in aan iskaashano waxaan u baahannahay in aan iskaashano oo aan isla fadhiisano oo aan ka wada hadalno sidee ayaan uga hortagaynaa dhibaatooyinkan aan markasta annaka ku jirno haddii la dhaho wiilasha ku dhimanayo jidka oo ku dhimanay xabada Soomaaliya u badan hadii la dhaho xanuun iyo cudur ku soo biiray bini'aadanka Soomaaliya u badan dhibaato kasta oo ku soo biirto mujtamaca in annaka aan noqono ofredka dadka ugu badan ee u dhimanayo waa arin aad iyo aad u naxtin badan waa arin aad iyo aad u qiiro badan marka Soomaaliya hal wax ayaan idinka codsanaa anigu miihi takhtar anigu miihi takhasus laakiin waxa ahay qaf adinka idin ka mid ah oo u jeedo dhibaatooyinka ay noo geysanayso aqoon darida dhibaatooyinka ay noo geysanayso iska dhaadhiciska qaladka ah dhibaatooyinka ay noo geysanayso qariska Soomaaliyeed baraha bulshada warbixinada ka soo baxayo dad idinka hortaagan ma lahan kiina aan aqoon u lahayn Swedishka ayadoo Soomaali ah ay u qoran tahay kiina aan akhriska iyo qoraalka aqoonin midka dariska ah ilmihiina walaalihiina ayaa u akhri karo Soomaaliyeed ma rabi in aan idinku noqdo qaf idin canaananayso laakiin waxa ahay qaf ay dhiig wado qaf waxa ahay idin danqanayso qaf waxa ahay rabo wanaageena marka fadlan Soomaaliyeed meel kasta aad joogtiin tixraaca talooyinka ay nasiinayaan dadka takhasuska ah tixraaca warbixinada ka soo baxay qaybaha kala duwan ee dawladda iyo hay'adaha aqoon-yahanada ah joojiya waxyaabahan aad kaligiin isku dhax faafinaysiin oo aad iska dhaadhacsiinaysiin oo ay ka mid tahay waxaan waa hergab kibray waxaan waa sidaan kan ma ahan waxaanay waa waxana dilay oo boor hiisyaasha ay dadkeenu ugu badan yihiin sababtoo ah ma aanan u fadhiisanin ma aanan u fahmin ma aanan u qaadanin sida dadka kale u qaateen marka fadlan in aan saakay idinku soo galo qayl iyo canaan waa arin aan ka xumahay laakiin waa arin aan rajaynay inay keento in aan wada fadhiisano oo aan wada hadalno oo aan wax ka bedelno xaaladan aan ku sugannahay marka fadlan
gaarsii qafka walaalka ah gaarsii qafka dariskaada ah gaarsii qafka wadanka banaankiisa joogo qodobadan muhiimka ah oo looga hortagayo coronavirus gacmaha waxaad iskaga dhaqdaa saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 second ka fogaaw baraha bulshada ka fogaaw isdhaxgalka dadka mujtamacayaasha waaweyn ah haddii aad isku aragtid dhibaatooyin caafimaad oo ay ka mid tahay qandho qufac jirka ku xanuunayo jirka ka dareemaysid caafimaad daro gurigaada joog ha soo dhaxgelin dadka ha tagin baraha caafimaadka haddii aysan ku haynin arin degdeg ah oo emergency ah fadlan Soomaaliyay raadsada warbixinada saxda ah fadlan Soomaaliyay aan iskaashano aan gacmaha isqabsano aan isku dayno in aan oola tacaalno xaaladan si aqoon ah si aqli ah insha Allah khair wa kuma santiin waqtigiina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكسن ووعن مقعيق ومريان وحن ربي ولاليال وقتينا إن ير أو كوبان إن كم أمحصدو وأن إذن كلا هدلو حالة دان لباتة بدن قيرة بدن نقول ساميسي نو كنتي حنونك كورونا فيروس marka koobaad ilaahay ha u naxariisto intii Soomaali ah intii muslim ah intii dad kale ah ee ku geeriyooday xanuunkan dartiis caafimaad degdeg ahna ilaahay ha u keeno inta isbitaalada joogto iyo inta guryaha joogto shalay waxa soo baxay warbixintii ka timid yaar fella oo ah intaas oo qof 6 qofood oo Soomaali ah dad gaaris inay xanuunka u dhintaan isla markii baraha bulshada Soomaalidu ku jirto dhan waa ay wada kaceen warbixino iyo wacyigelin af Soomaali ah takhaatiirteeni dadkeeni aqoon-yahanada ahaa way soo baxeen dadkii ayay la wada hadleen waxa nagu jira wili marka dad rabaan in ay galaan difaac oo ay ka hadlaan waa maxay sababta loo sheegay inay Soomaali ahaayeen waa maxay hadda ka hor takhtar baa wuxuu yiri Soomaalida aqligoodu wuu yar yahay sidaan kaas Soomaaliyay waqtina waxa loo baahan yahay in la isdifaaco waqtina waxa loo baahan yahay in la garto qaladkaada oo aad wax ka qabatid oo aad wax ka bedeshid waqtiga maanta aan ku suganahay waxa way waqtigii nool kaga baahnaa in aan wax ka bedelno dhaqankeena waxa caado noo ah hadii qof naga mid ah laga sheego xanuun ama la yiraahdo dhibaato caafimaad ayaa ku haysato in aan aqoon dari darteed aan dad qofkaasi oo la dhaqano si gaar ah taas waxay keenaysaa qofkii bini'aadanka ahaa oo nagu jira markii uu xanuunsado inuu qarsado xanuunkiisa sababtoo ah ma raba in loola dhaqmo si ka baxsan dadka kale waxa kale oo muhiim ah in aan bilaawno in aan la socono waqtiga aan la noolnahay waxa soo baxeen warbixino ah in loo baahan yahay in guryaha la joogo waxa soo baxday warbixin ah in iskoolaadka la xiraayo waxa soo baxday warbixin ah in ay qasab tahay social distancing in la suubiyo warbixinadaas oo dhan inta ay soo baxayeen ummadeena Soomaaliyeed wali waxaan u nooleen si caadi ah wali waxaan fadhina maqaaxiyada wali waxaan aadayna aroosyaasha wali waan isdhaxyaacaynay maanta marka in markii dhibaatadii annaka ay nagu badatay oo aan arkayno dhibkeedii in aan wali difaac sii galno aan dhahno maxaan annaka fartanool kugu fiiqaa waa wax aad iyo aad qalad u ah waxaan u baahannahay in aan iskaashano waxaan u baahannahay in aan iskaashano oo aan isla fadhiisano oo aan ka wada hadalno sidee ayaan uga hortagaynaa dhibaatooyinkan aan mar kasta annaka ku jirno haddii la dhaho wiilasha ku dhimanayo jidka oo ku dhimanay xabada Soomaaliya u badan hadii la dhaho xanuun iyo cudur ku soo biiray bini'aadanka Soomaaliya u badan dhibaato kasta oo ku soo biirto mujtamaca in annaka aan noqono ofredka dadku ugu badan ee u dhimanayo waa arin aad iyo aad u naxtin badan waa arin aad iyo aad u qiiro badan marka Soomaaliya hal wax ayaan idinka codsanaa anigu miihi takhtar anigu miihi takhasus laakiin waxa ahay qof adinka idin ka mid ah oo u jeedo dhibaatooyinka ay noo geysanayso aqoon darida dhibaatooyinka ay noo geysanayso iska dhaadhiciska qaladka ah dhibaatooyinka ay noo geysanayso qariska Soomaaliya baraha bulshada warbixinada ka soo baxayo dad idinka hortaagan ma lahan kiina aan aqoon u lahayn Swedishka ayadoo Soomaali ah ay u qoran tahay kiina aan akhriska iyo qoraalka aqoonin midka dariska ah ilmihiina walaalihiina ayaa u akhri karo Soomaaliya ma rabi in aan
idinku noqdo qof idin canaananayso laakiin waxa ahay qof ay dhiig wado qof waxa ahay idin danqanayso qof waxa ahay rabo wanaageena marka fadlan Soomaaliya meel kasta aad joogtiin tixraaca talooyinka ay nasiinayaan dadka takhasuska ah tixraaca warbixinada ka soo baxay qaybaha kala duwan ee dawladda iyo hay'adaha aqoon-yahanada ah joojiya waxyaabahan aad kaligiin isku dhex faafinaysiin oo aad iska dhaadhacsiinaysiin oo ay ka mid tahay waxaan waa hergab kibray waxaan waa sidaan kan ma ahan waxaanit waa waxana dilay oo boor hiisyaasha ay dadkeenu ugu badan yihiin sababtoo ah ma aanan u fadhiisanin ma aanan u fahmin ma aanan u qaadanin sida dadka kale u qaateen marka fadlan in aan saakay idinku soo galo qayl iyo canaan waa arin aan ka xumahay laakiin waa arin aan rajaynay inay keento in aan wada fadhiisano oo aan wada hadalno oo aan wax ka bedelno xaaladan aan ku sugannahay marka fadlan gaarsii qofka walaalka ah gaarsii qofka dariskaada ah gaarsii qofka wadanka banaankiisa joogo qodobadan muhiimka ah oo looga hortagayo coronavirus gacmaha waxaad iskaga dhaqdaa saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 second